waxaan ugu maqaalaa habeenin shir aad laga dhex yiri magaalada Kowto ilaa laga qabto maahane waxba ka socon maayaan ama la dilo maahane arrinkaas ma kaftan buha ما وجرتي أرنتاس كابتن معنا وجرتي وايد دبعت الواركي مركا كان يوسف دمدا كوهايسو دبعت ضدك رير قبل كسول لو جوسنيو وايد دمدا بين مركا أنا وأنا وذا سنين تيلا وش قيسا إن الله جهر يمن وحي كهر يمدا جعنبر الله وقفته مركا أرنتاس وجرتي وأنا قوم هذنا يا هل كان كجرتي يلا ضدك وأنا وذا كعين فالك ما قبل كان لقى الريحة يمسدق مدى ما قبل كي دمدا بوسوحنا labada waa laga riixay aad nabaday daawadayal meel kasta aad naga daawanasaan waa anigu Maxamed Maxamed Cawil Kowte waxa khadka telefoonka ku jira maayar ku-xigeenkii hore ee degmada Xudun ee gobolka Sool Cabdinaasir Guure Cabdinaasir soo dhawow aad baan ku salaamayaa kahnayo soo dhawow aad baan ku salaamayaa aad baan ka qaadnay bal ka waran xaaladda bal dadku waxay ku weerarsan yihiin halka aad ku sugan tahay hadda xagaad ku sugan tahay hadda waxaan ku suganahay meel la yiraahdo Turkiga ku sugan tahay xaaladda hadda taad nala hadlaysid bal ka waran jawiga Turkiga iyo xaaladda maxaad kala kulantay maadaama maayar horkii hore degmada Xudun ahayd bal maxaa halka kala kulantay wararkaaga saxda si aan dadka halkan uga dhargaan والله وحوي دي أنا وسيلة دكتور تاي مركي عن الحصة كسب بحي أو هذا أنا وضيع لناي ضد كان ألقن ككتير الدبادين سوى نقسم باليان ببحي اللي ما مصي إن وضك ليوسو دويو أو ملهاس عن الصداي أنا اللي يلاده وضك ولا قادو فينيا haddana waxa weeye insha Allah waan aniga hadeertu waxa iskaga jira casuumada iyo hawlo insha Allah waxa rajeenayaa wiilka soo socda inaan baxo bal yaa hawsha ka dambeeyo ku qabaqaabiyay jaaliyada hartiyeed ima kala harin waana go'aan ay qaadatay ninkii argagixisada u shaqeeyo ka soo baxa sida uu ku noolaan karo in loo maamuuso harti oo dhan baa ka midaysan warka usaaweeye maayar markii hore waxaad ahayd dadka Soomaaliland aadka ugu ololeeya aadka u jecel dadkii waxay yaaban yihiin waxay leeyihiin 360 digri ba qoob wareegay bal ka waran arrinka maxaa sababay arrinka wallahi de kullay markii hore fakarka waa lagu kala dunaado waa run oo anigu waxaan ku jiray dadka aad ugu ololeeya Soomaaliland oo fakarkooda aaminsan waxaan dib ka ogaaday inaan shakhsi khaldan aan ahay oo wadadii hore aan hayay aan aad aan ugu khaldanahay qofkuna mar buu ilaahay wadada toos ku ridaa marka sidaa darteed baan uga tanaasulay waxa jira degmada Xudun ee gobolka Sool in mashaariic fara badan ay soo gaari jireen kuwaas oo ah kuwa hay'adeed iyo kuwa biyo bal sidee loo maamuli jiray dadku walaac badan bay bariga ka muujin jireen shaqada sidoo loo qaban jiray waxay dhigi jireen musuqmaasuq xooggan baa jira arrinka maxaa ka jiray wallahi sidaynu ogsoonahay degmadeenna waxa ku cunudubnaa gobolka Sool oo inana ka tirsan tahay sida loo rabay in wax loo maamulana sidaynu ogsoonahay waxba looma maamuli jirin oo weyn oogeen mar walba caqabad cadaawadeed bayna saarnayd sidaynu ogsoonahay boholo tuula oo degmada Xudun xukunto ayaa mararka qaarkood dhici jirtay inay isku saamin noqoto waxaana maamuusiyay cid markaa hoggaanka naga sareysay haysay oo meesha fadhiday oo beesha ka soo jeeday waa gartay marka sidaa darteed ayaan waxyaalaha lagu kalsoonayn u dhici jireen waxa jira magaalada degmada Xudun oo kale iyo deegaano fara badan sida gobolka Sool oo kale dadka marba waxa lagu soo dhaxtuuri jiray barnaamij ay dadku iskaga hor imaanayaan barnaamijyada ayaa ka dambeyn jiray oo soo riixi jiray wallahi sidaynu ogsoonahay intii Somaliland ninka Muuse qabsaday inta waddanka joogeen markii hore intan sidan way yara dhaantay laakiin inta Muuse qabsaday sidaynu ogsoonahay dib ka dhacdo waddanka mooyaane iyo musuqmaasuq iyo in la iska horkeeno bulshada mooyaane wax horamara iyo wax nabadgelyo toona lagama shaqeyn jirin oo wataa dadku dhan waa ka dhergsan yihiin adiga waxa jira maayir ka sareeyo degmada Xudun oo ku magacuuna
waxa maqaal nuga ah bariyuhu dambeysay adigu wadanka ka baxaysay inay islaanta sharciga iska qaadeen arrinka maxaa ka jira wallahi ninkaasi anagu waan wada shaqayn jirnay markii hore markii dambana anigu aan soo baxay waan kala tashaday arrintaas waxaan ku raayay israacno saaseen magac iyo muuqaal ku leenahay ninkaasi wuxuu yiraahdo anu lacag yar baan sugayaa marka lacag taayir qaataan rabaa inaan meesha ka imaado lacag hadda Somaliland dad ay siinaysaa u qaybinaysan anu ma garanayo sidaa darteed baan ku soo kalaan baxnay oo hadalkaygii ku xidhan yahay lacagtu maxay tahay lacagta uu sugaya maxay tahay wallahi lacagtaasi de waa lacagtii sunta ahayd oo markii hore dadku la siin jiray oo wax qab lagu sheegahay taasoo hadda de faraha ka baxdo sideen ogsoonahay Somaliland inaysan hadda dad ay lacag u qaybiso san hadda iyadu ayna haynba marka de ninka hadda meel u fadhiyo le Somaliland bal lacag ka yar sugayaayo baan hadhooban markaan helaan dadka u tagayaa de aniga arrin munaasib ah lama aha wax suurageliyana aniga iyo ma muuqato waa gartay marka waxaan u dirayaa baaq waan u diri lahaa ninka maayirka Taleex iyo ninka maayirka xudun iyagu de dikreeto ma aha madaxweyne doortay waxa doortay iyaga bulshada la xasuuqayo ama degmada joogeen ama gobol ha joogeen oo de lagula jiro dagaalka baa iyaga doortay waxana waa wax iska dhamaanayo waxa weeye dhinacun bay u dhacaysaa waa wax iska dhamaanaya xilliga doontaba ha dhamaato adduunkana magac baa ka hara iyagu dikreeto maaha waa bulshada dooratay waxaan ugu baaqi lahaa in dadkooda sida xildhibaanada kale golayaasha kale oo kala tirsan ama iyagu xukumaan ama kuwa gobolka ah halganka ugu jiraan ay garan waayeen waxaan ugu baaqayaa in dadkooda u yimaadaan oo dadkooda la dhiig noqdaan oo la dareen noqdaan oo san markii xagga waxba ka soo waayaan aysan oran waa naga dadkayga u nimay hadda dadkooda wiigan soo socda ay u yimaadaan oo isu soo dhiibaan oo dadkooda la shaqeeyaan baan ugu baaqayaa iyagana intaas ayaa maayer waxa jirta barasaabkii gobolka Buuhoodle ayaa isu soo dhiibay oo soo rujuucay shalay sida warbaahinta lagu arkayay waxaad ka mid tahay dadkii ugu horeeyay ee soo rujuucay bal maxaa halka fariin u marinaysaa nasteextur ninka hambali aan u dirayaa ninkaas waa saaxiibka ninka barasaabka waan wada joognay goorin waan wada joognay waana wada hadalnaa ninka waxaan u dirayaa hambaliyo waxaan leeyahay guul iyo gobonimo wadadii anigu aan furay oo aan magac u bixiyo ku dayo walaalkaas aan u bixiyay wadadaas uu soo raacay oo waxa weeye wadadaydii buu sii jadiidiyay ninka hambalyaan u dirayaa harti iyo dhulbaantana waxaa ka codsanayaa ninka in magaciisa muuqiisa kor loo qaado sida aniga ay maamusteen in loo maamuso nin allaale ninka cadawga hanti kala yimaada oo cadawga hanti ka soo qaada in magaciisa kor loo qaado oo waxa weeye hantidaas aan dhiig ku daadan oo tolkii iyo halgankii lagu soo biiriyay in aad iyo aad sida kuwa kale oo isgabinayana ay ugu soo daydaan oo wadada ku dayo walaalka ay soo raacaan sida ogsoon tahay ba golaha deegaanka degmada Xudun ee gobolka Sool iyo staafkaaga waxay ku jiraan jiidaha hore ee gobolka Sool furimaha hore dagaalka ayay ka dagaalamayaan bal ragga maxaa fariin halka u marinaysaa waa ku daawanayaan wallahi aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaya raggii xildhibaanadii aan xukumay aan maayirka u ahaa iyo askartaydii aad iyo aad baan u hambalyeeynaya dawaragga halganka ku jira oo anagu xagga ku maqan bay qeybtood ku jirtay oo wali aan soo bixino marka hore ay go'aan iyagu iska qaateen aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaya waliba xildhibaanada deysma ogaan ninka la yiraahdo Maxamed Yaasiin ninka la yiraahdo Asad Jaamac xildhibaanada qaar baa wali Somaliland hunguri ka qabo oo xagga ku maqan ragga hadda aan magacaabay waa ragga halganka anagu xagga jirta iyagu ay ku jireen aad baan ugu hambalyeeynaya oo markii hore dadkooda iyo shacabkooda la dhig iyo la dareen noqday aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaya iyo ninka la yiraahdo garaadka Muxtaar Muuse Guray waa raggii markii horeba halganka ka qayb galay oo ka qayb qaatay alaankaana ku jira ragga xildhibaanada oo hadeerto ka daba ka wareegaya Hargeysa oo ninka la yiraahdo Hagar uu ka mid yahay waxaan leeyahay
raggiinna iyo dalkiinna iyo dhiiggiinna iyo dhicaankiinna ku soo biira waad aragtaan oo barasaabadii iyo maayiradii intiiba halganka iyo dadka bay la shaqaynayaan marka iyagana intaasaan leeyahay raggaana waa un mahadcelin waxaa jira xildhibaano iyaga laftoodu ka soo baxay degmada bohol oo la saami noqotay barigii doorashada degmada xuduun ee gobolka sool iyaga laftigooda dee mas-uul baad u hayd maxaa iyaga halka fariin u marinaysaa iyagu de markaynay haddeerto dee bahashu waa habar iyagu de waxa weeye halgankana kama qayb qaadan karaan kumana jiraan dagaalka somaliland ee ku wado iyo dhibaatada ee ku wado shacabka reer sool dadka jirana maaha sidaynu ogsoonahay laakiin de waa dadka weeye iyagu bohol iska jooga waxa weeye waana u hambaliyeenayaa maadaama aysan ka qayb qaadan dhibaatada gobolka sool lagu wado aad baan ugu hambaliyeenayaa iyaga waxaa jirtaa berigii warbaahinnaha qaar sida warbaahinta Kaha News hadda warka ka qabanayso kale inaad dagaal qadhaar idin dhex mareen oo hawada macallin maras kala hadasheen maxaa iyaga halkan bahada fariin u marinaysaa wallahi Kaha News aad baan u salaamayaa iyadu weeba saxneedo waxa weeye dagaaladii naga dhaxayay iyagu waa saxneedo halganka iyagu aan dhibtanay dhicin oo dadka dhibaatada lagu hayay halganka iyadu ay haysay annaga marka inay khaldan tahay nolol muuqatay laakiin waxaan ogaanay inay saxan tahay oo ka dhiibiday dhibta dadka lagu hayay gobolka reer sool waxaan ugu maqaalaa habeenin shir aad laga dhex yiri magaalada Kawto ilaa laga qabto maahan waxba ka socon maayaan ama la dilo maahan arrinkaas ma kaftan buha ma way jirtay arrintaas kaftan maahan waa jirtay waayo dhibaato loo arkay marka Kaha News degmada ku hayso dhibaatada dadka reer gobolka sool loo goysanayo waayo degmadaabeen marka anagu aan wada aaminsanay intayada u shaqaysa inaan laga hor iman wixii ka hor yimaada gacan bira lagu qabto marka arrintaas waa jirtay waana ugu mahadinayaa halganka aad ku jirtay iyadoo dadku aan wada kicin falka ma gobolka laga riixay mise degmada ma gobolka iyo degmadaba waa isku xidhnaay oo labada waa laga riixay aad iyo aad maxaa dadka shacabka degmada xuduuna ku daawanaya aad halkan fariin marinaysaa shacabka reer xudun waxa weeye waa shacabkaygii waa isu halgamayn iyaga koobka ah haday sanaacanan oo san dil ugu xukumin ma soo dhiiradeen inaan dalkayga la dhignodo waa dadkii doortay waxa weeye waxaan ka raali galinayaa in kastaan markii dambe de maqlay oo waxa weeye sidii rabeen aan yeelay cid Allah cidii markii hore iga carootay aad iyo aad shacabkayga ugu raali galinayaa waana mahadsan yihiin waana aad iyo aad banu tuurtay u saaran yihiin reer gobolka sool iyo shacabka reer xudunba dhammaan waa salaamiya gobolada sool iyo cayn iyo sanaag dhammaan waa salaamiya asna waxa maayirku xogaankii hore degmada xudun ee gobolka sool Cabdinaasir Guuro aan khadka telefoonka kula hadlayay waa aniga Kawte sidaas iyo nabadgelyo